Keenkii ugu dambeyn wuxuu ku soo laabanayay gurigiisii ugu dambeyn 6 bilood oo kadib markii uu ahaa tumaal tuulo kale. Markaasi waxaa la socday saaxiibkiis Aoki markii ay dhaafayeen webiga. Ma daalnin miyaa safarkii dheeraa kadib ayuu weydiiyey Aoki. Markaasi Keenkii uu dhool cadeeyay. Sidee baan u daalnaan karaa? Ugu dambeyn gurigayga ayaan ku laabanayaa. Markaasi wuu eegay. Dhool cadeyntaas si muuqato qof khaas ayaa iskale Soomaa waa Sugi ayuu weydiiyey. Yaa kale ayuu markaasi dhahay. Keenkii markaasi wax famila muusa lahayn. Guriga uu ku nool yahay reerka deriska la ah waxaa degan gabar la yiraahdo Sugi oo reerkeeda la nool. Isaga ilaa yaraantiisa wuu jeclaa. Ayadana aad ayay uga murugooday markuu dhawaan tagaya, laakiin way ogayd inay muhiim u ahayd shaqadan. Ma waxaad u malaynaysaa inay weli ku sugayso bilahan badan kadib? Ayuu weydiiyey. Sugi familkeeda aad ugmaysa faraxsaneen xiriirka isaga la leedahay maadaama uu ahaa agoon, laakiin wuxuu rajeynayay inay ku qanci doonaan shaqadiisa oo markaasi u ogolaan doonaan inay isaga iyo iyada famil samaystaan. Haa ayuu dhahay isla markiiba, laakiin Keenkii wuxuu gartay inuu run ahaantii uusan hubin. Sugi waxay ahayd gabar yar oo aad u qurux badan oo dad badan guur u bandhigteen. Waxaa laga yaabaa saacanba inay familkeeda ku dareen qof ay markaasi ku qanceen. Mawduuca inuu bedelo ayuu go'aansaday. Ka waran xaaskaaga Ayumi, waad ku faraxsantahay inaad la kulantiso ma ahan? Markaasi murugo ayaa ka muuqatay dhool cadeyntiisa. Run ahaantii way xanuunsan tahay waana ka walwalsanahay la kulankeeda. Ha ka walwalin, mar dhow ayay caafimaadi doontaa, khaasatan maadaama aad adiga hadda la joogi doontid. Markay tuulada soo gaareen, xilli dambe ayay ahayd carigoo dhan way aamusnaayeen. Wuxuu eegay gurigiisa guriga ku xiga ee Sugi degneed. Wuxuuna markaasi aad ugu xiisa qabay soo laabashadiisa inuu u sheego. Wuxuuna isweydiinayay markaasi inay heshay waraaqadiisii in kale. Keenkii markii uu gurigiisa galay isla markiiba sariirta ayuu isku tuuray. Indhihiisa aad ayay u cuslaayeen. Markiiba wuxuu bilaabay inuu seexdo, laakiin intaan la gaarin salaad subaxi ka hor ayuu wuxuu dareemay gacan taabanaysa. Indhihiisa ayuu kala furay. Wuxuuna arkay agtiisa inay fadhido jacaylkiisa Sugi, taasoo gacanta ku waday laambad lagu sharaxay ubaxyo. Waa soo laabatay. Muddadan oo dhan adiga ayaan ku sugayay, ayay u tiri si jilicsan. Farxad saa'id ayuu dareemay markii uu arkay. Markaas ayuu yiri waan kuu xiisay. Waxaan u maleeyay in markaasi qof lagugu daray. Sugi laambada dhulka ayay dhigtay isaga ayayna u soo dhawaatay waxayna ku tiri lagama yaabo adiga kaliya ayaa ila jacaylkaygiyo. Kadib habeenkii oo dhan ayay waqti isla qaadanayeen. Subaxii markii la gaaray oo Keenkii kacay, wuxuu arkay joodarga dhinaciisa inuu maran yahay, markaasna aad ayuu u carooday. Markii uu joodari ka kacay oo fariistay, wuxuu dareemay wareer iyo madax xanuun saa'id ah. Markaasna wuxuu gartay inay tahay safarkii dheereed. Kadibna wuu soo kacay wuxuuna bilaabay shaqadiisii. Wuxuu shaqo ka helay dukaan caama ah oo saa uga fogeen. Subaxii oo dhan shaqadiisa ayuu markaasi ku degdegayay isagoo raba inuu Sugi la kulmo. Shaqadii markii uu ka soo laabtay, waxay ahayd xilli dambe. Sharkana kama aysan yeerin guriga Sugi. Markaasi wuxuu is yiri xilli hore ayayba iska seexatay. Asagoo daalan ayuu mar kale seexday. Wuxuuna soo kacay markuu dareemay gacan cankiisa saaran. Gacanta ayuu qabtay. Sugi ayuu dhahay isagoo garanaya markaasi taabashadeeda. Haa jacaylkaygii ayay u tiri si aad u jilicsan. Keenkii gacmihiisa ayuu u soo jiiday. Mar kale ayayna habeenkii waqtiga isla qaateen. Hawshani waxay socotay habeeno badan. Subax kastana wuxuu soo kacay Keenkii isagoo daal badan dareemaya iyo sidoo kale wareer. Aoki ayaa markaasi suuqa ku arkay. Wuxuuna ku yiri Keenkii, waxaad u egtay inaad xanuunsan tahay. Culays badan ayaana kaa dhacay. Waxaa laga yaabaa inaad dhakhtar u baahan tahay si aad caafimaadkaaga u fiiriso. Keenkii madaxa ayuu ruxay. Aniga shaqada unbaa iga tirabatay. Wax kale ma jiraan. Sidee way Hayami? Ayuu weydiiyey. Way fiican tahay. Sidee way Sugi? Ayuu weydiiyey. Iyadu way fiican tahay. Habeen kaste ayaan is aragnaa. Markaas ayuu ku kaftamay weli maada guursan miyaa? Keenkii markaasi wuxuu u sheegay saaxiibkiis inuu habeen walba arkayay Sugi, markaasna ay subaxii xilli hore baxday intuusan kicin ka hor. Taasi waa arrin shaki badan ayuu dhahay. Waqtigan oo dhanna hal mar subaxii maadan arag. Keenkii wuu yara aamusay. Maxaad ula jeedaa arrinkaas? Ayuu weydiiyey isagoo ka yara xanaaqay. Aoki u soo dhawaaday isagoo iska ilaalinaya inay dadku maqlaan. Waxaa la sheegay meelahan inuu Yokai habeenkii wareego. Keenkii wuu carooday. Sidee baad Sugigayga ugu tilmaami kartaa inay Yokai tahay? Anigu ma dhageysanayo hal eray oo iyada lagu caayiyo. Aniga ma raba inaan kaa caraysiiyo, laakiin subaxii maadan arag soo ma ahan. Keenkii wuu ka tagay isagoon wax kala dhihin. Habeenkii markii la gaaray ayuu wuxuu isweydiiyey in markaasi Sugi wax ka khaldan yihiin iyo in kale. Maxaa dhacay jacaylkaygii? Ayay weydiisay.
gacanteeda ayuu markaasi soo qabtay. Ka waran haddaan subaxii aadno beerta markay xilliga casarki tahay, anigana shaqada ayaan fasax ka soo qaadanayaa. Suuki way dhoola caddaysay. Biri subax ayaan arrinkaa ka hadlaynaa. Shakigiisa wuu batay markii subaxii xigay uu ku sugayay beerta si u timaado, laakiin maba aysan imaanin. 2 saacadood kadib gurigeeda ayuu aaday markaasi asagoo bilaabay in albaabka ku gargaraaco, laakiin cidna kama furin. Ugu dambeyn wuxuu aaday guriga saaxiibkiis asagoo wax walba u sheegay. Kadibna Awoki wuxuu yidhi, sidee baad dareemaysaa caawa inaan gurigaaga imaado, marka ay Suuki kuu timaadana aan anna arko? Markaas ayuu wuxuu yidhi Genki, arrintaasi ma hubo. Kadibna wuu ku ceshay Awoki wuxuuna yidhi, haye banaanka ayaan istaagayaa, kadibna daaqadda ayaan kaa soo fiirinayaa si aan u arko. Laakiin Genki kuma uusan faraxsaneyn arrintaasi. Ugu dambeyn wuu iska yeelay markii uu goosan waayey. Habeenkaasi Genki wuu seexan waayey. Saaxiibkiis banaanka ayuu fadhiyey. Labadoodna waxay markaasi sugayeen inay Suuki timaado. Saacado badan ayaa ka soo wareegay. Suukina ma aysan imaanin. Markaas ayuu bilaabay Genki inuu ka walwalo Suuki inay caafimaad qabto iyo in kale. Wuu sii seexan rabay. Ugu dambeynna wuxuu dareemay gacan taabanayso. Hurdadii ayuu markaasi ka soo booday isagoo saa'id u naxsan. Wuxuuna arkay Suuki. Xagee baad jirtay caawa dhan? Waan ku sugayay ayuu dhahay. Suuki markaas waxay tiri, haddii aad rabtay inaad ila kulantid, maxaad iigu iman weyso ii soo raadin weysay? Ayay weydiisay iyadoo yaaban. Daaqadda ayuu fiirshay Genki. Wuxuuna arkay markaasi saaxiibkiis oo ka soo fiirinayo. Inkastoo iftiinku yaraa, haddana wuxuu arkay naxdinta ka muuqata. Markaasna wuxuu ku qayshay, ka fogow iyada waa Yokai. Suuki way naxday kadibna way istaagtay. Genki wuxuu marna eegay saaxiibkiis marna Suuki isagoo wax fahansaneyn. Ugu dambeyn sidii in sixir laga qaaday oo kale ayuu wuxuu arkay haraggeedii oo milmaya. Waxaana markaasi soo muuqatay inay ahayd lafo, indhaheedana waxay ahaayeen eber. Markaasi waxay ahayd lafo sidii naagtii u labisan oo kale. Saa'id ayuu u qayliyay wuuna ka fogaaday. Markaasi Suuki weli way yaabaneed. Maxaa dhacay ayay dhahday. Isna wuxuu dareemay xanuun saa'id oo wadnihiisa ah. Saaxiibkiis ayaa qolka soo galay isagoo mindi gacanta ku haysta. Ka fogow saaxiibka ayuu ku dhahay. Suuki way qaylisay iyadoo cabsanaysa kadibna way baaba'day. Waan kuu digay ayuu dhahay Awoki. Ayada waa Yokai. Naftaada ayay dhuuqaysay. Waa sababta aad u daalneed mar walba. Saacan way ku dili lahayd haddii aadan ogaan lahayd waxay iyadu tahay. Genki ka gadaal ayuu u fadhiistay asagoo aad u yaaban. Naxdin saa'idana ay ka muuqato. Habeenadan oo dhan marooxaan ayuu la seexanayay. Subaxdii xigtay Suuki gurigeeda ayuu aaday wuuna ku garaacay asagoo raba jawaabo. Wuu ku garaacay ilaa ugu dambeyn albaabkii laga furay oo ay waalidkeeda banaanka u soo baxeen. Waalidkeeda ayuu weydiiyey waxa ku dhacay Suuki asagoo weli ku qanacsaneyn wixii soo booqanayay inay iyadu rooxaanteeda tahay. Waalidkeeda markaasi murugo ayaa ka muuqday. Ayada waxay dhimatay isla maalinkii aad tagtay ayuu dhahaa aabaheed. Maalinkaasi waxaan ku kalifnay inay qof kala guursato. Ayada waxay dhahday inay adiga un leedahay, adiga ma ahay cid kale. Kadibna webiga ayay isku tuurtay wayna dhimatay. Genki aad ayuu uga naxay markaasi in jacaylkiisa dhimatay. Meesha ayuu markaasi iskaga tegay isagoo qalbi jabsan. Habeenkaasi asagoo Suuki ka fakaraya ayay u timid ayadoo sideedii hore u qurxan laambadna wadata. Intay u soo dhawaatay ayay markaasi waxay weydiisay maxaa kugu dhacay jacaylkaygii. Asaga markii uu saa'id u fiirshay ayuu gartay inuusan markaasi cabsi dareemaynin sababtoo ah jacaylkiisii Suuki oo adduunkoo dhan ugu jeclaa ayaa la joogtay. Ma xasuusataa wixii kugu dhacay ayuu weydiiyey markaasi. Suuki way yaabaneed. Adiga waad istishay biyaha ayaanad isku tuurtay. Intaa wixii ka dambeeyayna adduunka ayaa saa u wareegisay adigoo markaasi sugaya ina raadinaya aniga. Iftiinka dayaxa markuu qabtay ayay Suuki waxay ku soo laabatay jirkeedii dhabta ahaa oo ahaa naag lafa ah. Ayada way naxday. Anigu ma xasuusto waxaasoo dhan. Waxa kaliya aan xasuusto waa adiga. Maalinkii aan anagii adiga la rabay inaan kulanno ayaan soo kacay subaxii. Waxaana arki waayay nafsadeyda. Waxa kaliya aan arkay waxay ahayd lafahayga. Waana naxay markaasi. Kadibna qoraxdii ayaa dhacday. Anigana waaban ilaaway wixii aan ka cabsanayay. Waxa kaliya aan rabayna waxay ahayd inaan adiga kula kulmo un. Genki wuxuu bilaabay inuu gacantiisa ku ooyo. Kadibna wuxuu yiri waxa ku fiican inaad tagtid. Waxaad u baahan tahay inaad nasato. Ma awoodo ayay ku oyday. Aniga waxa kaliya aan garanay waxay tahay inaan rabo inaan adiga ku ag joogo. Wadada kaliya aan aqaano waa wadada adiga lagu soo qaadayo. Subaxii markay tahay lafa ayaan ahay. Laakiin habeenkii markii la gaaro aniga ayaan ahay oo sidayda ayaan ku soo laabtaa.
gacanteeda ayuu qabsaday, markaasna wuxuu dareemay inuu isagana uusan rabin inuu ka fogaado. Kadibna fikrad ayaa ku soo dhacday, fikrad uu iyada subaxiina kula joogi karo. Habeenkii kale markay soo booqatay, wuxuu markaasi Genki siiyey hadiyad. Ayada markaasi sideedii caadiga ayay ahayd, mar kale iskamaysa karinin jacaylkeeda. Markii ay furtay kartoonkii, waxay aragtay inuu ku jiro maask markaasi naag wejigeeda ah. Kadibna wuxuu ku yidhi, haddii aad xiratid waxaa laga yaabaa inaad subaxiina markaasi isla joogi karno. Subaxdii xigtay, markaasi Yuki maaska ayay qabtay, wuxuuna kula socday suuqa dhex bartamihiisa, isagoon u dangalaynin dadka fiirinaya ama waxa ay sheegayeen. Inkastoo ay weji qabtay, haddana suuqii cabsi ayay dareemaysay. Ha cabsanin ayuu dhahay, wax walboo dhaca kaama ag fogaan doono. Wuu ogyahay ballantaasi inuusan oofin karin, maadaama uu sii daciifayay maalin kasta. Mar dhow isna waxaa laga yaabaa inuu iyada iyo isaga dhimasho ku kulmaan. Saaxiibkiis dukaankiisa ayuu dhaafay, kadibna wuxuu arkay saaxiibkiis oo si shakale u fiirinayo. Markaasna uu garanayay saaxiibkiis inuu ogyahay in naagta uu markaasi suuqa la marayo aysan ahaynba naag markaasi nool. Xilli dambe markay ahayd, Aoki gurigiisa ayuu ku soo laabtay. Maadaama ay xilli dambe ahayd, tuulada dhan way aamusneed, xataa gurigiisana wuu aamusnaa. Xaaskiisa mar aad u dhow ayay dhimatay. Genki arrinkaas muu sheegin. Sidee buu ugu sheegi karaa markuu saaxiibkiisa suuqa la wareegay Yokai? Laakiin waxa uu ku fakeray, haddii uu booska saaxiibkiis ku jiri lahaa oo ay Hayami u soo laaban lahayd, ma laga yaabaa markaasi Hayami inuu cesho haddii dhimashada ka soo laaban lahayd. Miyay celin lahayd? Ayaa cod jilicsan mugdiga dhexdiisa ka soo yidhi. Wadnaha ayaa istaagi rabay markii uu mugdiga eegay, kadibna laambad ayaa laga shiday. Aad ayuu u naxay markuu arkay xaggaas inay fadhido xaaskiisa, gacantana markaasi ku waday laambad oo ku sharaxan ubaxyo iyadoo isaga ay soo eegayso. Waan kuu soo laabtay jacaylkaygiyo, ayay tidhi. Kadibna way dhoola caddaysay, dhoola caddayn markaasi dhimasho ah. Aoki wuu qayliyey markaasi, uu arkay inuu jirkeeda milmayo oo uu muujinayo markaasi lafo ka hooseeya haraggeedii.